wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee hogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayna qayb ka ahaayeen madaxa ugu sareeya hay'adda IOM iyo ku-xigeenka hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR waxaa xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo kulan ay kula qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kulanka oo sidoo kale ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah golaha wasiirada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay arrimaha amniga horumarinta mashaariicda iyo sidoo kale abaaraha xilligan ka jira deegaanada Koonfur Galbeed kulanka oo in muddo socday isla markaasina looga hadlay ajendayaal dhowr ah ayaa markii uu soo cidlaaday waxa warfideenka si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale wakiilka gaarka ah ee hogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ugu horreyn madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan ka socday qaramada midoobay ee maanta kulanka ay kula qaateen magaalada Baydhabo maanta oo ay taariikhdu tahay 31 bishii toddobaad waxaa booqasho noogu yimid wafdi uu hogaaminayo SRSG-ga Ambassador James Swan iyo wafdi ballaaran oo la socda oo UN-ka ah oo hay'ado kala duwan ah runtii waxaan ka wada hadalnay arrimaha xaaladaha guud ee dalka ka jiro ay ugu horeeyaan arrimaha samafalka abaaraha iyo barakaca iyo sidaas oo kale in gurmad degdeg ah loo suubiyo dadka soo barakacay iyo abaaraha wixii laga qaban karo laga qabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha security-ga amniga oo soo kordhay labadan beri culeysyada iyo dagaalada ka soo cusbaanaaday deegaanada Koonfur Galbeed sida goonida ah xuduudka borderka xuduudka Itoobiya iyo dawlad deegaanka iyo Koonfur Galbeed dhanka kale wakiilka gaarka ah hogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo la hadlay warfideenka ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta looga sameeyay magaalada Baydhabo waxaana sidoo kale uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee magaalada Baydhabo ay u soo gaareen ay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen saameynta ay ku yeesheen qoysaska danyarta abaaraha xilligan ka jira Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. In our meetings this morning, President Abdiaziz and I discussed a range of local and national issues of importance. We exchanged ideas on how best to advance Somalia's peace-building processes and state-building processes now that a new federal government leadership is in place. We agreed on the importance of a deep collaboration between the federal government and federal member states to advance progress on national priorities.